waayahay saaxiib yaa dhammaantiin aad baan idin salaamay isniin wanaagsan isbuucii wuu noo biloomay waxaa rabaa update ku dambeeyey marketka 24 saac u dambeeyey inaan idin la wadaago maanta saaxiib yaal waa isniin bishana waa 26 saac ujeedaan suuqa qaab qurux badan buu ku biloomay cagaar buu ku biloomay saaxiib yaal haddii aan ku bilowno qiimaha BTC 109,000 iyo wuxuu marayaa 769 dabcan ka dhalkii xalay wuxuu kusoo xirmay isbuucii ahaa 109,000 maantana meeshuu saaxiib yaal ka furmay asoo weliba xoogaa dhiig cusub lagu shubay lacag xoogaana maanta ay soo geshaysaa ujeedaan suuqu yahay saaxiib yaal cagaar dhankaas haddii aan filan saaxiib yaal 2,500 weeye guud ahaan saaxiib yaal wax yar baa muddo suuq inuu fiican yahay aflaad ku dambeeyey Solana wuxuu marayaa 177 aflaad u dambeeyey 3.16% uu soo kacay coinanka si guud marka la fiiriyo saaxiib yaal waa okay dhankaas marka la fiiriyo saaxiib indexka VID and Greed 69 buu marayaa asna altcoin season ma dhow saaxiib yaal 28 buu marayaa laakiin waxaa la qiyaasayaa saaxiib yaal haddii Bitcoin xoogaa maalmaha soo socda iyo bilaa soo socda haddii lacag ka soo baxdo in mataqaanaa ay macquul tahay in lacagta soo geli doonto waliba coinanka saaxiib yaal isha aan ku hayno waxaa ka mid ah XRP Sol konkan Doge guys ciyaar maahan Dogecoin waa minka ugu weyn soo ujeedaan hadda meel fiican buu isku jiraa kaalinta sideed buu jira horeenta waxa laga yaabaa sanadkan waliba in meel fiican laga Zui asna saaxiib yaal waa kuma fiican hoos u joogaa marka aad cumrada iyo xajka aadayso waa suurtagal inaad ilowdo kaarkaaga bangiga laakiin waxa suurtagal ahayn inaad ka tagto mobilkaaga oo uu kugu jiro Wafi Digital Mastercard ku dukaamayso ku jira tigidhada ku isticmaal ATM-yada ku bixi biilka hotelkaaga Wafi Mastercard saaxiibka safarka iyo dalxiiska haddii saaxiibay newska aan ku bilowna shirkadda MicroStrategy ayaa waxay iibsatay 4,020 BTC waa number aad u tiro badan waxay ku kacaysaa qiimo ahaan dollar ahaan waxay ku kacaysaa 427 milyan bay ku kacaysaa waxayna ka gateen markuu midkii yahay 106,000 markii maraysa bay gateen saa ujeedada hoos ka sii way barnaamijkooda hadda 109,000 bay marayaan already faa'iido ka saaran 106,000 3,700 بعد ديري انت waxay faa'iido ahaan qiimaha marka filan saaxiib BTC 106,000 markii marisay bay hoos ka siiyeen Bitcoin amount 4,020 saaxiib loo iibsadeen in general saaxiib ama total hadda waxay haystaan 580,250 BTC waa shirkadaha corporate marka la filayo number 1 ah lacag aan saaxiib waxay haystaan 40.6 bilyan oo dollarka Mareykanka sanadkii la soo dhaafay faa'iidaha saaxiib 16.8 bay wadaan faa'iidaha marka wada leeyahay shirkadda Microsoft xoog bay iibsadeen BTC adigana sida laga rabaa in hoos ka siisid oo kala saaxiib inta boneerka ama ganacsadaha caanka ee loo yaqaan Robert Kiyosaki ayaa dadku wuxuu weydiiyay sababta dadka ay soo iibsan BTC buu runtii su'aal uu soo dhigay bartiisa X wuxuu yiri xitaa uu yiri 0.01 Bitcoin ah adigu $1 buu dhigmata qiimaha 0.01 xilliga maanta la joogo 190 ku dhafan $1 buu dhigmata muuqaalkan duubiya wuxuu leeyahay qof xitaa $1 oo waxa weeye ama 0.01 Bitcoin maanta haysto 2 sano gudahooda wuxuu noqon karaa uu yiri taajir mana qiyaasi karo lacagtaas oo priceless into 2 years inuu ka dhawo yiri faa'iidada oo qofkaasi mataqaanaa ka helo marka adigu laftigaagu ma haysataa BTC jajabka Bitcoin dhowr jeer oo idin sheegay ma haysataa BTC saaxiib yaal jajabkeeda waxaa loo yaqaanaa Satoshi $20 bil kasta $30 haddii aad gelisid Satoshi baa jajabkaas ama cents ama ruruq Soomaali wax lagu dhaho marka yes ninkan waa aan saaxiib buugga ninka qoray weeye Rich Dad Poor Dad waa inta booliis runtii aniga wax badan aan buugtiisa podcastkiisa aan ka soo faa'iideystay number 1 weeye nin waxa weeye real estate xoog ugu jira weeye runtii ganacsada weyn ah dhankaas markaa real estate ama guryaha sidoo kale saaxiib ninka caanka loo yaqaan Carlton Capital ayaa bilaabay asna barnaamij buug ninkan 10x loo bahdo korsamay caan dadka tobnaad yaqaan marka isla barnaamijka 10x Miami River Bitcoin Fund buu bilaabay goolkooda saaxiib waxa weeye ama waxay hiigsanayaan in urursadaan 1 bilyan oo mataqaanaa dollar oo real estate ama guryo mataqaanaa ku maalgeliya iyo sidoo kale 200 milyan oo BTC ah marka BTC uu ku soo taray hanti mataqaanaa keed inay ka dhigtaan ama treasury asset ahaan okay ninkan laftigiisa saaxiib real estate aad ugu jira ninkan buug badan buu qoray aniga stylkiisa iyo qaabka wax u gudbiyo iyo buugtiisa iyo ma jecli buug uu leeyahay saaxiib runtii ku akhriyo waliba 10x laakiin waa nin mataqaanaa wax badan laga faa'iido waxa way ganacsade weyn ah runtii mataqaanaa dhanka real estate kan wax badan ka qoray marketer weyn ah marka BTC buu runtii waxa weeye soo post gareeyay marka uu jidaa labada ninka oo laba inta badan aad waa weyn waliba dhanka real estate industry real estate waxa ugu jiraan
بارنتي وحوي إيش أكو هاي BTC sidoo kale saaxiib dhankaas website-keena hadda aan gela crypto.com news hadaan soo gelinay ka soo faa'iideysta qodob muhiim ah meesha ay ku jiraan waa saaxiib inaan la wadaago madaxweynaha Trump saaxiib ayaa ogolaaday in dib loo dhigo waqtiga dhamaadka canshuurta 50% waa say ku soo riday iyaga marka wuxuu mataqaanaa dib u dhac uu ku sameeyay oo wuxuu yiri June 9 bay ahayd markii hore haddana wuxuu ka dhigay July 9 marka June hadda waxba kama dhigna July 9 boorti ka dhigay 7 marka intaas in heshiis kalaan baa laga yaabaa sidoo kale saaxiib senator Australian ah ee loo yaqaan Rennick ayaa Bitcoin ku tilmaamay Ponzi taasoo dhalisay falcelin adag oo ka timid bulshada crypto ayagu dhaba wax aan wax weyn oo timi karin marka Ponzi scheme dadka yaqaano ama aqoonba waa mataqaanaa dadka ku gaado ama dadka lagu dhaaweeyay mid-level marketing network marketing basically hoos yimaadaan dad lacagtooda loo celiyo weeye lacag baa laga qaaday qof kale kii kale loo celiyo investorka iligeedka ahaa lacagtiisa waxaa la siinayaa mataqaanaa investorka hadda abaa kan cusub la siinayaa qaabkaas u shaqeysaa inkastoo mataqaanaa dee fikradiisa uu ka dhiibtay laakiin senator weyn maadaama uu yahay hadalkiisa wax la saaxiibayaal hadalhayn badan u dhalisay sidoo kale saaxiib exchange caanka Mareykanka laga leeyahay Coinbase waxay wajahaysaa dacwad kooxeed kale oo la xiriirta jabinta xogteeda data breach wax loo yaqaano iyadoo maalgashadayaasha ama dadka investorska isticmaala exchanges ay sheegayaan khasaare ka dhashay hoos u dhaca qiimaha saamiga kadib markii aruurinta la shaaciyay marka reportkan soo baxay in marmar ay dhacdo in xogta la jabsado ama data breach taasoo keentay noo soo sidoo kale ninkan saaxiib waxa dhalay madaxweyne Trump baa dhalay wuxuu yiri saaxiib sababta aan cryptocurrency u galnay waxa weeye waxa loo yaqaan debank waxa weeye bangiyada systemkii oo middleman iyo mataqaanaa centralization ah in laga guuro decentral iyo non middleman iyo arrimahaas loo guuro buu yiri marka debankkaas oo kale hadda wax la codsiinaysa I helped them set up the pipe that enabled them to go public because the other social media platforms were canceling us. When Twitter threw my father off, we started Truth Social. So we created actual businesses as a solution to the problems that were being thrown at us. We got into cryptocurrency. That's another one I read about a lot of conflict these days. We got into cryptocurrency because we were debanked. And so it's interesting. طبعا صاحب يلا سويتان با تكنولوجيا كان كريبتها بلوكتشين لو استعمالها runtii uu aad uga soo horjeedaa bangiyada waayo shaqooyinka ay qaban jireen asaga wuxuu qabanayaa si speed leh oo safe ah secure ah fudud oo mataqaanaa middleman oo isku jirno adiga waxaaga saaxiibna milis ETF-yada Bitcoin asbadka Mareykanka ayaa toddobaadkan waxay iibsadeen 25,500 oo BTC halka ayaalis ahaan kaliya mataqaanaa 3,150 Bitcoin la soo saaray marka runtii BTC badan bay iibsadeen waxa weeye ETF spotka Mareykanka sidoo kale saaxiibayaal ee kororka mugga ama waxa loo yaqaan volume growth-ka lagu kala wareejiyay mataqaanaa USDT iyo mataqaanaa Tron ayaa runtii waxa weeye kor u kacay Ethereum uu ka hormaray ilaa 2000 January 2020 marka runtii USDT Tron caadi maaha USDT Ethereum buu ka sarmaray sababtoo marka runtii Tron حقوق الله استعمالية USDT sidoo kale saaxiib shirkadda Nvidia ayaa qorsheynaysa inay soo saarto chip AI jaban oo loogu talagalay Shiinaha kadib xayiraadaha dhoofinta Mareykanka sida laga soo xigtay Reuters waa ogtiin saaxiibayaal Nvidia chipkeeda u dambeeyay latest modelka very advanced ah looma ogola in loo dhoofiyo China oo laga ilaaliyaa technology waxyaalo badan bay ka soo saarayaan technology-ga way ku tartamaan technology AI-da Mareykanka oo kaaminayso marka saaxiibayaal waxay qorsheynayaan Nvidia in chip raqiis ah oo jaban Shiinaha la siiyo maybe in ayagana ka faa'iideysan karaan aad ugu baahan jeebkaasi Chinese-ka sidoo kale saaxiib shirkadda Circle ayaa waxay daabacday 250 milyan waxa weeye lacag u dhimato oo USDC ah Solana waliba Solana mataqaanaa baa lagu soo fasaxay lacag badan bay daabacay runtii suuqa la soo sidoo kale saaxiibayaal runtii website-ka laba article oo muhiim ah soo gelinay maanta iyo shalayba horta waxa ka heliysaan website-kan saaxiibayaal update-ka suuqa dambeeyay article kan akhrisay waxa loo yaqaan social engineering iyo sida looga hortago qataraha runtii article muhiim ah ka qornay sida qataraha looga hortago khiyaanada bulshada isoo crypto number 1 sida wax weerarada ay u dhacaan oo kale marka runtii tutorial fiican baa ka bixin noocyada ugu badan khiyaanada bulshada crypto afar sababaha khiyaanada bulshada sida iska ilaalin karto talooyin tusaale baan ka bixinay marka saaxiibayaal website-keena gala crypto si joogto ah oo soo qoray news-ka laga faa'iido news-ka maanta waa 20 qoraal ah ayadana saaxiibayaal linkii hoos biyaala ama gelacrypto.com ku qor
runtii daily newska kaliya news maahan fundamental analysis baa ku jira saaxiibayaal falaqayn tutorial information xog hadda waa article kan kale hadda akhriste waa maxay stable coin lacagaha crypto iyo fiatka sida isugu xiraan runtii aqoon badan baa ku jirta guys bilaash weeye laga faa'iideysto koorsadiina sidoo kale ku jirta halkan baa ka dalban kartaa website-kan iskuulka newska saaxiibayaal maanta oo intaas aad baan salaamaya ciao ciao